waxaan booqasho ku soo gaarnay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran aniga wasiirro kale saakana waxaan u kurgaleynay howlaha shaqo ee ka socda gobolka iyo degmadaba gaar ahaan wasaaradda maaliyadda aan wada shaqayn gaar ah leenahay iyo wasaaradda howlaha guud oo sidoo hadda nagala joogo sidaan bal u abaabuli lahayn xaaladda wasaaradda howlaha guud shaqadeeda u bilaaban lahayd gobolka kaga aadanayd sida in la sameeyo taarikadii bixinteedii canshuurihii la dardar geliyo xafiis cusub oo wasaaraddu ay meesha ka furato shaqooyinkaas aan rabnaa inaanu maanta u koorgalno oo aan dardar gelino sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan aad uga mahad celinayaa soo dhaweynta iyo sida quruxda badan ee noogu soo dhaweeyeen xisaabiyaha iyo labada xisaabiye iyo siduuha iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda maaliyadda ee gobolka gaar ahaan degmada runtii waan ku faraxsanahay shaqada quruxda badan iyo sida dadka loo ugu adeegayaan halkan waxa laga sameeyay isbuuca la soo dhaafay olole badan oo ku saabsan gaadiidka canshuurtiisa markii hore kama jirin gaadiidka lagu canshuuro laakiin hadda isbedelka ku dhacay gobolka dartiis waxaan rajaynaynaa in anaguna aan xafiiskayga intaan furano iyo wasaaradaha kaleba oo noqdo gobolka gobol shaqaynaya laga heli karo adeegii wasaaradaha oo dhan insha Allah waxaan rajaynaynaa